maareeyaha wakaalada biyaha ee magaalada Berbera Saleebaan Cabdi Looliyo oo ay weheliyeen mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxil ayaa maanta kormeer indhaindhayna ku tagay ceelasha ay biyuhu uga yimaadaan magaalada Berbera kuwaasi oo ceelal cusub lagu soo kordhiyay dhanka kalena waxa ay kormeer ku sameeyeen beebabka mara magaalada Berbera dhexdeeda oo ay cilad farsamo ku timi toddobaadadii ugu dambeeyay balse ay la tacaalaysay wakaalada biyaha ee magaalada Berbera ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay maareeyaha wakaalada biyaha ee magaalada Berbera Saleebaan Cabdi Looliyo waxaana ka mid ahaa hadaladiisii meesha gudka aad arkaysaan inta leeg aanu laamiyada jarnay aanu badda hoosteeda qodnay wuxuun baan hayduun ciladii waqti dheer soo jirtay oo joogto noqotay oo aan dhamaanaynin markii hawshu dhamaan weyday aanu ku jirnay 4 maalmood iyo 4 habeen halkan oo noqonaysa markii saddexaad aanu ka shaqeyno ay magaaladana ka maqnaayeen biyo intaaba go'aankaanu qaadanay wuxuu ahaa hawl kasta iyo waqti kasta nagu qaadatay inaanu systemka ka guurno aanu magaalada system kale oo kan dhinac mara oo biyo la yiraahdo ama isagu plastiga ka samaysan bahalkii maxaa la yiraahdaa PVC very strong oo Jarmalku dhigay ilaa 2003 dib u dhamaaday mala horaantiisii inaanu guurno taas waxay nooga baahatay kharash badan shaqo badan iyo qalab fara badan intaba haddana mar haddii aanu aragnay inaanay hawshaasu laga maarmaan ay u tahay bulshada oo ay caafimaad ahaan iyo isku halayn ahaan iyo adkaysi ahaanba bahalkaas uu uga faa'iido badan yahay bulshada reer Berbera halka aynu maanta taagannahay ilaa iyo marka laga soo bilaabo halka alloore ama kitaabka marka laga soo bilaabo aanu soo wareejinay ilaa Burca Sheekh maxaa la yiraahdaa Jaamalaaye Barwaaqo Daaroole intaas oo dhan waxaanu ka soo bedelay dhamaanteed beebka aynu isticmaali jirnay olkaha waxaan ugu hadhay in yaro haamaha iyo dekeda iyo in yaro dhaxo hagan suuqa hoosaashida yari eeriyadan ka sokaysa marka runtii ilaahay baan marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad baa mahadnaqaynaa mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxil ayaa sheegay in wakaalada biyaha ee magaalada Berbera ay wax badan u qabsoomeen intii uu joogay maareeyaha wakaalada biyaha dal walba wax ka bedela oo isbedel ku sameeya dhalinyarada waa nin dhalinyara oo aqoon leh oo xilkasa oo iimaan leh oo damiir leh shaqadan laga soo shaqeynayay 5 habeen loo soo jeeday habeen iyo maalin loo soo jeeday beebkan waxa la diyaariyay 2003 baa la diyaariyay THW baa diyaarisay ilaa laga soo bilaabo 2003 iyo maanta 2020 ah qof mas'uul oo ku dhaca waa la waayay inuu beebka hore ka guuro oo beebka cusub ugu wareego beebka cusub waxa weeyaan reserve uu ahaa mar walba waxa laga diirinayay beebka hore inaan la hagaajin karin waxa ajaayiba oo aan aad iyo aad ugu amaanayna in biyihii soconayay xareedda ah ee nadiifta ah ay ka saameyn badnaayeen biyihii qalaadha ee badda ah ee ka soo baxay goobta laga shaqeynayo badda Jobson baa gacanta lagu hayaa shaqaalaha oo ka shaqeynaya waa xilkas iyo karti dheeraad ah ay leedahay dhalinyaradu marka waxaan leenahay Saleebaano waxaad u furtay oo kalsooni buuxda siisay dhalinyaradu inay wax bedeli karto waxna qaban karto Berberana runtii way u baahan tahay team noocan oo kala ah inay maamulaan xagga biyaha sababtoo ah Berbera way koraysaa way balaaranaysaa dhismihii dekada ayaa aad u socdo biyo badan loo isticmaalayaa xoolihii baa socda magaaladii baa aad iyo aad u socoto oo weynaanaysa kulaylkii baa inagu soo socdo xagaagii baan iminka 2 bilood inooga harsan yihiin marka the right time baa shaqadan qabatay runtii oo aan shaqaalaha siinay amaanta ugu badan ayaa waxay ahayd inay soobeen ama ay ka midho dhaliyeen in magaaladu ay biyaha hesho halkan aynu dul taagannahay iminka ballaybaad moodaa waa biyihii badda waa halkii u horreysay ee bahalku ka jabay ee lagu kala leexinaya beebka kale lagaga tallaalay arrin fudud ma noqonayso biyihii badda iyo biyihii beebkii weynaa ka furmayey bartay ku kulmayaan oo dadkii biyaha joojiyay cabayayna ay berri sugayaan ama saacad maadaama ay xeeb tahay aanay saacad la'aan karin biyo la'aan taladu maamulka kama soo hadho Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Saab TV magaalada xeebada Berbera arma inta maaha